dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo toddobaadkan uu marti noogu yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Inta uu socdo barnaamijkan martida mikrofoonkuna waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa arrimo badan oo muddooyinkii dambe aad la isku weydiinayay kuwaas oo isugu jira xaaladaha gudaha Soomaaliland dhexdeeda, Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo wada hadaladii labada dhinac u dhaxeeyay halka ay ku dambeeyeen iyo waliba qorshayaasha Soomaaliland ee muddada dhow iyo mustaqbalka fog. Ugu horeyn aan soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxana aan ku bilaabayaa waraysiga qaybtan. Ugu horeyn madaxweyne bal nooga waran xaaladda guud ee Soomaaliland. Xaaladda dalka Soomaaliland meel wanaagsan buu maraya Ilaahay mahadii waa sanad barwaaqo roob badan u da'ay oo dadku nimcooyin u degan yahay dalka gudihiisu waa nabad شاركها نوضان سودا نولهاي إلهي مهدي تلابوين حرمر واقعاتني دكتي بربراء عدي إلهي لهذا سنة كالوضا كل يفعل تكوى رماد وضادي اسكو فريسي بربراء يوى شارع بربراء كوارتور إيانا خبقوكا دوري ترمبا والسبيلي إيانا وقتها إليك أماتان سريا يعني سوى نتيالي لهذا وضادي لهذا عارقاوانا وحنوغا هذه دمات كذي 60 كيلومتر كله haddii alla raado qorshaha kale waxay noqonaysaa wadada burco Hargeysa waxaan filaynaa wada kale oo ku jirta initiative-ka Africa geeska Africa la wado oo Djibouti ka soo bilaabato dowladda soo marto dalka iyo isku xidha intii awoodeedu ogolaato oo dadku ay isku duuban shacbiyada dowladda ay wadaan baan wadnaa waayo waxaan nahay dal aan adduunyada kale ixtiraashayn oo dhaqaale wadaagin wax yar oo hay'adaha kale mooyaane oo iyagu isku kalsoon marka waa dadaalayna aad iyo aad baan Ilaahayna ugu mahadnaqaynaa waa wadanahay wangarta madaxweyne haddii ay roobab badan oo si xiriir u da'ayay jiraan oo geeyga barwaaqo badan ka jirto waxaanu ka warhaynaa geeska Afrika inay ku soo noqnoqoto abaaro dadka iyo dunyadaba saameyn ku yeesha marka xilligan barwaaqada maxaa ku tala gasheen ee qabateen si looga hortago haddii ay abaar kala soo noqoto abaarihii dhacay iyo xaaladaha adduunka marka la eegay dadka Soomaaliland waxay go'aansadeen inay dhulkooda wax ka soo saaraan oo mustaqbalka dhow xagga cuntada iska filaadaan marka dad in badan baa talaabo xoog laga qaaday xagga beeraha la beeray waa markii u horeysay ee dalagii ka soo baxay ay noqoto in suuq loo doono geeyso beeraleyda sidaa darteed dawladdu imika waa inta mashruuc bay samaysay ay dawladdu maal gelisay oo 1 milyan loo dhigay in loo maray dalaga dheeraadkii inuu yahay oo dawladdu ka iibinayso ay ka soo iibsanayso beeraleyda ka iibinaysana si good dhow dadka tabaalasho loo siiyo heerkaas aan maraynaa waana la sii kordhinayaa ilaahayna roobka barwaaqada insha Allah uu noo wadi doono mudana madaxweyne Soomaaliland waxay toddobaadyo ka hor u dabaal degtay 29 sanadood oo ka soo wareegay markii lagu dhawaaqay gooni isku taaga muddadaasi 30 sanadood ku dhow maxaad ku qiimeyn kartaa waxyaabaha qabsoomay waxyaabaha aan qabsoomin ilaa hadda qabyada noqday iyo heerka aad isleedahay 30 sanadood waa laga filayay Soomaaliland markay jirto marka aan ka qiyaaso maalintii lagu dhawaaqay iyo maanta guulahan gaadhay iyo horumarkan gaadhay wuxuu igu rajo gelinayaa in aan mustaqbalka soo socdo dhow oo dheer horumar inta ka weyn samayn doono oo caalamka kuwa boqolaal sano jiray la gaadhay aan haysan doono waan ku sheegayaa maalintii lagu dhawaaqay Soomaaliland magaalooyinka waaweyn badankooda caasimadu kamid tahay Hargeysa kamid tahay ma jirin ama uu yaraa gurista qasaaray guri daaqadani ma jirin wax mas'uul iyo diyaarad ay rusheeyeen baa hado baabaa xaafadaha iyo dhulka miina waa taalo dariiqna maad maray beerna maad saran kareen meel lama gaaray meel biyo socdaan oo biyo looga soo qaado dadka ma jirin oo waxa la xeelahaa dhow waa la burburiyay ardaydu meel wax ka dhigato dugsi ma jirin kursi taladaha dhagaxyaan baa laga bilaabay meel haddii alla beeda sheegay amaana oo qofku istaaga ama uu roobka gala madaxan magaalooyinka aragtay ma jirin halkaas laga soo qaaday maanta waxaan leeyahay intaas oo jaamacado magaalooyinka fooqada ka dhisan ee shacabku dhistay iyo kuwa dawladda waa diyaari waxaan dalka ugu ammaan badan ee lacagta iyo dahabka dibadda yaala laakiin waxa la sheegayaa inay wali jiraan caqabado iyo meelo badan oo aan laga horumarin oo ay gaabis badan ku jiro caqabadahana waan ka gudbaynaa inta aan sodonka sameeynay sanadoodna sida la isu dhisay iyo sida loo horumarin barno waa ka sii dheerayna اعترافك وقت دورها قط قيمة دورها كوكو Soomaaliland waa goolka ay higsanayso oo waanu gaarayna insha Allah waqtiga taayba hamad weyn iyo niyad wanaagsan
iyo waxa isbaarisha bana siisay soddonkii sano waxaanu qaban madaxweyne waxaad ka warantaa xanuunka coronavirus oo dunida faraba'an ku haya heerka xanuunka COVID-19 ee Soomaaliland dad badan uu ku dhacay 1521 qof baa la baaray baaritaankana waxa la bilaabay 21 March waxaa laga helay oo cudurka lagu arkay 384 22 qof baa u dhintay aad iyo aad baan u sahlanahay marka la eego dadka kale wuxuu ku saameeyay diyaargarow badan baanu galnay resource-ay waxaanu hadan waanu isticmaalnay waxa ilaahay mahadiya sidaan baac mushkil iyo qof aqoon leh iyo dawlad si midaysan ugu gurmanay dalka qalabka xoogiisa oo dhan dawladda waxa soo iibiyeen baac mushkil shirkado badan baa milyan iyo dheeraad bixiyay nin waliba halkiisa iska xilqaaday laakiin waxaa jiray cabashooyin ka soo baxayay adeegyada caafimaad sida oxygen-ta dadka lagu rakibo iyo qalabkan kale ee lagu neefsado ee ventilatorska loo yaqaano oo muhiim u ahaa xanuunka coronavirus ka war arrinta madaxweyne dawladdu wixii loo baahnaa ma haynin China la isku tagay kuwiiba xagga dambe galay qalabkii dib looga dhacay waa run marka dadka qalabkii u baahnaa hore ma keenin duruuftaas ayaa keentay laakiin sidaan ku sheegay waxaanu heli waan isku geeyay maanta qalabkii badalkiisa 60% baa yaala inta kale waxay soo jirtaa madaxweyne 2 sanadood iyo badh aad xilka haysay waxaa isa soo taraya dad badan oo cabashooyin ka muujinaya hanaanka ay xukuumaddaadu u socoto iyo walaaciyo ay ka muujinayaan dhinaca cadaaladda bal arrimahaas inooga waran waxay ila tahay bini'aadmiga meel walba dawladdu ku qalda dawladda iyo cabasho waa kala maarmaan waayo marka qofka la dooranayo ee doorashada dhacayso waxa la filayo dadka wax dooraya waxay filayaan iyo xaqiiqada inta la qabto mar walba kala bata oo dadku kul walba waxay filayaan furasho weyn iyo ifaalkooda tamarayka kamida taagirka kamida tukasoo doorasho gasha oo adduunka kamida marka waan ogolahay inay dadku ka caawiyaan dawladda iyo xukuumadda ay soo qabtay waa dadku soo aragti maaha anagu iyo xukuumadda iyadu waxaanu salaamahay dar ilaahay iyo daacadaan ku shaqeynay iyo in dadku si cadaalad ah wax loogu qabto hal iyo habeen loo shaqeeyo ummadda anagu halkaas taagan intayna ka gudbin cabashooyinkaas hadda su'aal kala sii raaciyo madax dhaqameedka oo inta badan lagu tirin jiray inay xukuumadaha la tirsan yihiin oo ay dhinac la yihiin xukuumaddaada waxa muuqata in qaar kamid ah madax dhaqameedku ay ka soo horjeedaan oo warbaahinta bulshada iyo warbaahinta kaleba ay ka soo baxayaan iyagoo dawladda dhaliilo badan u soo jeedinaya xagee iska jiideen xubnahaasi kamid ah madax dhaqameedka iyo xukuumaddaada arrinta waxa lagu samaynayaa anigu markaan meesha nimid waxaanu kala saaray xukuumaddii iyo shacabkii maamul ahaan dal ahaan taanu wadareena dalka waxaa laga xukumaa oo laga hagaa qaybo badan furayaashii la doortay iyo xukuumadda waa meel madax dhaqameedka oo ummadda madax dhaqameedkooda iyo dhaqankooda waa meel culimada oo diinta haysa waa meel dadka maalqabeenka iyo suuqa xorta iyo ganacsatada oo dhaqaalada haya waa meel dhalinyaradii iyo haweenka intaasoo dhan baa talada dalka qaranka wadaaga annagu intaba gacan wada shaqayn baan wadahay ra'yigoodaan dhegaysanaa soo jeedintooda dareenkoodan dhammaantood dhegaysanaa laakiin waxaanu kala ilaalinaa in xukuumadda hay-adahaasi isku wada qasmaan waayo xukuumadda shaqayn mayso iyadu way ka duwan tahay xukuumaddu madax dhaqameedka lama doorta waa dhaxal ganacsigu isagaa maalkiisa leh laakiin xukuumadaha imtixaan baa daba yaala waa lagu doortay middaa lagu doortay maxaad qabatay balantii maxaad qabatay marka hadday hay-adaha iyagu xortaa ku dhaqa ay ku midanto tallaabo qaadi mayso marka anaga culayska dheeradkaana wa saaran sidaa darteed baanu hawsheeda gaar u wadnaa qolada kalena aan wada shaqayn la leedahay haddii aan hore uga sii socdo waxyaabaha kale ee xukuumaddaada lagu dhaliilo waxaa kamid ah in saxaafadda iyo xorriyatul qowlka ay ku adag tahay oo ay gacan adag kala hortagto islamarkaana ay jiraan dad u xiran fikirkooda oo ay cabireen ama safar ay meel ku tegeen eedahaasi maxaad kaga jawaabaysaa mudane xaqiiqo waxaan kaaga jawaabaya waxay xaqiiqa waa la leeyahay iyo lasoo sheegayaa iyo xaqiiqo maaha xaqiiqada aan ku sheego waxay Soomaaliland waa dal dimuqraadi ah oo distoor leh oo qof waliba xorriyadiisa uu ku doon karo hadalka ma jiro qof la soo xiro oo aan waqtigiisa ku qabtay maxkamada horgeeyay laakiin boqolkiiba 9 qof waliba maxbuus la soo qabto waxa la marayay sheegay waa inuu lawyer helo haddaanu dhaqaalihiisa ogolaan dawladda u qabata waa inuu iska difaaca dawladda xukuumaddu haddii ay qof ka tirsada xadgudub maxkamaddu toos u dacwooda garsoorka iyagu waxaa maraya garsoor uga dhexdhexaadsan dadka inuu yaryahay laba dadka journalistaha ah
qof journalista oo soo qabtay oo waqtigiisii booliska loo geeyay oo maxkamadda la geeyay oo lawyer loo qaban oo doodin oo maxkamad fadlan ma markaa qofku waa inuu maxkamadii aamina hadduu ilaa qalad baa laga soo qabtay oo maxkamadii aamin maayo waxa ka darray oo matiis ma sax noqonayso qofka markaa waxaan leeyahay Soomaaliya waxa taala dimuqraadiyad xorriyad saxaafadeed oo zawad adduunka ugu badan qofka Soomaaliya xorriyad u haysta iyo halku gaarayo adigu dhageyso halka gadaway waan u baranay maadaama aan koranay dadka ay u barto xorriyad la sidoo qaato oo laga socdo shaqo markaa xorriyad iyo sharciyad la isku marataado ma jiro afduub iyo cidka xadgudubta laakiin haddana wariyaal badan baa la sheegayaa in xukuumaddaadu xabsiga u taxaatay soo taas ma jirto sida sharcigu qof walba xakiimka gaari aad wato oo aad leerka asjeedo taraafigu ku qabanaya qof wal oo ku xadgudub sharciga waa la ilaaliyay ma jiro ana kugu celinayo qof aan suxufinimadiisa u xignay qofka suxufiga qabto waa loo sheegay sharcigu jabiyay iyo wuxuu galay maxkamadana uu tagaa lawyer uu qabsaday qofka inta waayay waa khalad ah waa sax in haduu jiro xiraba laakiin boqolkiiba 99 wada talmara madax banaanida garsoorka la fahantiisa ma lagu kalsoonaan karaa madaxweyne garsoorka laftiisa mararka qaar lagu eedeeyaa inaanay xukuumadda ka madax banaanayn oo aanay dhex u noqon karin eedeysanayaasha iyo xukuumadda anigu waxaan qabaa inay mar walba dawladda iyo qof hadii ay qabsadaan dhinaca taasiyeeda cashuura isku qabsadaan saxaafada isku qabsadaan kiisaas mar walba inay dhinaca adag xukuumadda u dhigaan oo dhahan dawladda haduu qaato iyada dawladii oo ay sharciga halka adag ka qabtaan dawladda waxay maraan processka ninkii lawyer maleeyahay dhexdhexaad xorey ma yahay sharcigiisa ma loo qaado abiil ma qaato intaasaa loo maray markaa qofkii garsoorka ahaa isagoo intaa maray oo qof iimaan leeyahay oo mar walba loo dhaariyo sidaa waxay la tahay inay xadgudub iyo gardarro tahay in la yidhaahdo dhexdhexaad maaha waan ka madaxweyne anigoo waqtigaaga kaaga mahad celinaya dhowr su'aalood baan jeclaan lahaa inaan kaa weydiiyo arrimaha dibadda haddayna arrimihii gudaha intaa kaga nimaano aan ku horumarayo ictiraafka Somaliland 30 sanadood wax yar baa uga dhiman ilaa haddana ma jiro ictiraaf caalami ah oo ay ka heshay beesha caalamka mana jiro dal si toos ah u aqoonsaday dal madax bannaan maxaa hortaagan baad leedahay ictiraafka Somaliland ma gaabis dhinaciina ka yimid baa jira mise beesha caalamkan weli ku qancin qadiyadda Somaliland iyo waxyaabaha ku doonaysaan ictiraafna ka heshaan caalamka horta wax waliba qadarka Ilaahay ku socda wax waliba qadar alle iyo waqtigeeda leeyihiin Somaliland maalintii la dhigay dibsan qoshada iyo dibxarada dalka ilaa maanta waxba isma haysto haday aqli tahay iyo haday tahay fikrad iyo siyaasad wax walba way isku geysay sidii adduunka uu aqoonsan lahaa dalkaas soo shaqeynayo dal wax laga qabsaday yahay ammaan baanu keenay dimuqraadiyadan geeska Afrika baanu ka sameeynay mashkaadi dhexdeeda habaanu dejinay shaarku aanu walaayo walaaltinimo kula noolahay dhaqaale adduunka oo soo saaray annaga iswada waa abuuray intaas oo dhan waxay tahay waxyaalaha dawladda waa aqoonsan oo lagu shaqeeyo caalamkana cid walba gacan nabadgeliye ayaanu u fidinay fagaarayaashana garnaqsi xoog laanu geynaa haddana weli waqtigii may gaadhin cidna tiraahdaa ictiraaf ma mudnin iyo maydaan shaqayn iyo ceebtaas ay ictiraafana mana arag dagaalka u weyn wuxuu ka socdaa waa dawladda muxuu ka dhisan oo markii la ictiraafay ictiraafkii iyo dhaqaalaha heshay u adeegsatay inay kula dagaalanto Somaliland haday dhaqaale dagaalan tahay haday propaganda tahay haday dhexdeeda qaska abuurta tahay marka dagaalka lagu socda waa dagaalka dawladda xawar ka dhisan oo wixii hore dalka u geysatay ayaa maanta wada waxaan ku sheegayaa dadka Somaliland had kasta gaadho qiimo kasta ku qaadato waan gaari doonaa insha Allah waan aan dheeray waa tahay inkastoo eedo u soo jeedisay dawladda Soomaaliya haddana idaacad ahaan dhinacooda kama warhayno balse waxaanu ognahay inay jireen wada hadallo u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya in ay muddooyinkan hakad ku jiraan maxaad nagaga biirin kartaa wada hadalladaasi halkay marayaan haddii ay jiraan kulamo loo balansan yahay ama qorshaysan iyo haddii ay jirto sabab aad noo sheegi karto oo wada hadalladaasi ay u joogsadeen ama loo hakiyay horta qolana aan warmahay waan ka warmay waxaan dhaxyaala waxaan ku sheegayaa waa hadal baan diyaar u nahay inaan walaasimo ku wada noolaanaan diyaar u nahay dad waa isu xilnaa in la dhex galaa ma ahayn inaan xaqiiqada rumaystaan baa in la kala anagu iyo Somaliland iyo madaxweynaha waxay diyaar u yihiin
wixii dhaba in lagu wada hadlo qolo walba xaqiiqada ay soo dhawaato waxaa jiray kulan sida la sheegay aan sii qorshaysnayn oo ku yeerateen magaalada Addis Ababa dhawaan oo ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu idin kula siiyay bal madaxweyne kulankaasi sidii uu ku yimid iyo waxyaabaha ka wada hadasheen haddaad nooga waranto waanu kulanay madaxweynaha Soomaaliya ishii February kulan aan la sii qorsheeyay degdeg ahaan ku yaabsado waxaanu soo wax yar baahay aynu wada hadalno oo waxayna aan walaal ku dhamaysano ayaan ku heshiiyay waana hadal wanaagsan wada hadalku markaas sidoo noqonaya waa in noqdaan hadal meel dhex la soo goro joojiyo waa in la helaa cid noo garqaata laakiin madaxda Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in Soomaaliland ay tahay wali qayb ka mid ah Soomaaliya maadaama aan si rasmi ah loo aqoonsan aragtidaada arrintaasi ku aadan xaqiiqada runtii taala waxa weeye 30 sano Soomaaliland iyo Soomaaliya laba dawlad bay kala ahaayeen waxaan ogolahay in dawladda ixtiraamo in dad isku dhawaanaan oo walaalaha wax wada qabsano matii dawladda naga matiida ma harku wax la isku qurana ma haddii markaa Soomaaliland ay ka gooday Soomaaliya inteedii kale isla markaana aydan helin ictiraaf caalamiya xalku muxuu noqonayaa sidee arrinta ku wadaysaan horta Soomaaliya laba dawlad istaga baan waxayna dad ay ayagu leeyihiin deemadda ka go'ay ereyga go'ay waa gaftay ma go'ayno laba dawlad istaga oo imkana kala baxay baan dawladdeeda waa dhisanayna caalamka ictiraafna xawar kama rabno xawar iyadoo dagaal weyn uga jirta adduunyada dawladda waa dhisan oo aan ictiraaf leeyahay أنا اعتراف بدوني يتبعد قروح حسن اعتراف هو ضدك إنه سوى اعتراف ودل كيسا بيشتو ما كانوا أنه سلاء أنفسه أنه وضوء ما كانوا هاينو مدلو نابد تفايقوا بيسانو خورو مر إذا البقى عنه ولا نوفي منه قفوا يسيقى أنه بحر وريه وروحبه أحبابه قبصنا مركا اعتراف معها إن أي لقوا اعترافه أو دولة أسكو حرمتها ونصدى ذيك الصورة خد كستاها قاوت وقت كستاها قاعد قيمة كستاها موقعه وحنا اعترافه أنا مري مايو كورن haddii fikirka dadka qaraaminsan yahay dhinaciisa inuu qaadno oo adiga lagu ogolaado inaad noqoto madaxweynihii Soomaaliya oo isku dhan oo caasimadii la siiyo Somaliland oo mar kale la soo celiyo midnimadii 60kii ay labada gobol ama labada gees ama labada wadan ba iskugu yimaadeen khaladaadkii dhacayna dib loo saxo wax laga barto taasi dhinaca Somaliland suurtagal ma ka tahay horta waxa qalada intayna wax soo ogolaanay madaxweynaha Hussein waxaan ku heshiino aan walaalo abuurno waa taa tagi horta yaa wada hadlaaya heshiinaya sayfan waxaan ka doonaynaa qolada Soomaaliya inay aqoonsan oo ay dhageystaan dawladda Somaliland ee lixdii walaalada ugu timid iyo Soomaaliya in laga dawlad kala gaar ah haddaan taaba lahayn maxay sheegaysaa madaxweynaha waa maxay hadraacay bas oo baraan ministru tagay atoosan oo xariga iyo dadkii soo diyaaray ugu garaaco oo madaxweynaha lagu dimiyo ayuu ka macaash waa in la helaa Soomaaliya iyo Somaliland lixdankii halkay joogeen ama isku aqoonsan weey madaxweyne marba jirtay aad loo hadal hayay in madaxweynaha Soomaaliya la filayay inuu magaalada Hargeysa yimaado oo halkaas kulanka ugu horeeyaaba ka dhaco inkastoo aan kulankaasi dhicin sidaan ka warhayno ma jirta suurtagalnimo ah in ama farmaajo ama madaxweyne ka dambeeya oo Soomaaliya yimaadaba ku soo dhaweysaan Hargeysa oo Somaliland idinku yimaado halka kulanka ugu horeeyaaba ka dhaco shada cadeey Soomaali qof kasta oo Soomaaliya mandad in Hargeysa waa jecelahay waan soo dhaweynaa Soomaali inay soo talaabo shaqaystana waa soo dhaweynaa Soomaali dad iyaga isku xigta dad wanaagsan oo halgamana way ahayd dhamaantoodba maanta Maxamed Cabdullaahi wuxuu taagay inuu yahay madaxweynihii Soomaaliya iyo Somaliland oo gobol taasi xaqiiqo ma aha isagoo taasoo iman maayo Hargeysa marka hadiiba uu qiro oo uu ogolaado Somaliland inay tahay dal madax banaan miyaan la oran karin xigmadii uu soo socday marka meesha way ka baxaysaa waxay ahayd in madaxweynaha xamarta ugu bilaabo walaalada iyo horayga dawladda loogu gaadhay inay lagu doogeen maantana goorma istaga walaa anaga ictiraafayna sababta inuu soo wadnayn lagu waraabo isqadareen laakiin ma dhacaysa dad Soomaaliya loo qoori maayo gobolada waqooyiga soo siyaarinaya taasoo soo sidii وهاجاك أديات بعض ما هتسنتحي مغنى موسبيح عبد مدحوينها السوماليلان ورئيسيان فاحسن الحقصة بدنا جسي سياد نو قلعتي مركلو حقولها هي مهتنة أديات بعض ما هتسنتحي أديات يجي أو أدبا أدبا خاغم هبط إياه إذا كان يريدنا صالح وشاجة بنا في دمان